waxaan shaki ku jirin in dadaalka fiican uu miro fiican yeelan karo haddii aad nasiib u yeelato in maskaxdaada ay ku hawl gasho. waxaad ku noolaan doontaa nolol midda hadda aad ku nooshahay ka wanaagsan. Dr. Sayid Cali Cabdullaahi Cusmaan. waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbinaynaa arrin muhiim u ah nolosha qof kasta oo bini'aadim ah oo doonaya inuu sameeyo wax uun horumar ah. waxaan mowduucan inta badan ama xooggiisaba ka soo qaadan doonaa buug lagu magacaabo Maskax Nuuriye. buuggan waxaa soo saaray qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Sayid Cali Cabdullaahi Cusmaan. haddii aan wax yar oo horudhaca idinka siiyo buuggan, ugu horrayn buuggan wuxuu tilmaamayaa caqabadaha wax u dhimi kara maskaxda iyo sida loo daaweyn karo, isla mar ahaantaana sidii waxqabadka maskaxda kor loogu qaadi lahaa. haddii aad dhanka iyo Soomaalida u fiirsatid, waxaad arkaysaa in caqabadaha ugu badan ee na haysta ay tahay maskaxdeenna oo u shaqaynayn sidii saxda ahayd, iyo weliba borograamyo khaldan oo aan aaminsanahay. wuxuu leeyahay qoraagu, maskaxda waxay la mid tahay haddaan tusaale u soo qaadanno dab damsan oo haddii la shido wax karin kara. waxqabadkeedana wuxuu u baahan yahay in lagu riixo, wax soo saarkeedana wuxuu ku xiran yahay hadba sida loo howlgeliyo. maskaxda waxay leedahay dhowr qaybood, qayb walbana waxay leedahay shaqo iyada u gaar ah. qof walba ee inaga mid ah wuxuu ku qancay inta yar ee uu ka isticmaalo maskaxdiisa. waxaa nasiib darro ah adigoo intaad noolaanayso kooban tahay inaad ka faa'iidaysan kari weyso maskaxdaada. waxaan rabaa inaan kala saaro fikir iyo xusuus. qaybta xusuusta waxay hawsheedu tahay inay xusuusato wixii hore loo soo maray, laakiin qaybtan aan ka hadlayno hawsheedu waa wax cusub keento ama muddo waxaan jirin. ma waxaad u malaysaa inaad weligaa noolaanayso? ma waxaad u cuntaa inaad noolaato, mase waxaad u nooshahay inaad wax cunto? bal arrinka kala saar. sida kaa muuqata, taasi waxay abuurtay in hamigaaga uu yaraado. hamiyaradaasi oo iyadana ay sii abuurayso in waxqabadka maskaxdaada uu yaraado, iyo maskaxdaada oo aan haysanin shidaalkii ku howlgeli lahayd. intuba waxay sii abuuri karaan hoosudhac maskaxeed, waana midda maanta ku haysata. waxaan aaminsanahay inaad la mid tahay kuwa sameeyey waxyaabaha mucjisada leh oo keliya aad u baahan tahay in lagugu dhiirigeliyo hawshaada. maadaama ay arrintani kugu cusub tahay, waxaan hubaa in culaysyo ay kaa hor imaanayaan. waxaanse hubaa in maskaxdaada ay la sanqaadi karto waxa aan kuu tilmaamayo oo awooddaasi Allah u geliyey. waxaan talo u soo jeedinayaa ardayga ama qof walba oo doonaya inuu ku guulaysto hawshiisa, inuu niyeysto waxa uu doonayo inuu ka gungaaro, iyo inuu damaaciyo waxa uu doonayo inuu ku guulaysto. ogow, niyaddu inay lafdhabar u tahay helidda waxa aad rabto. intaan la guulaysanin ka hor in la niyeystay waxa la rabo in lagu guulaysto, sidaa darteedna lagu guulaystay. sida uu qoraagu yidhiba, waa halka aan ka heli karno waxa aan u baahannahay. waxaa hubaal ah haddii aan isticmaalno maskaxdeenna inay wax badanna ogeysiin karto. fadlan ka faa'iidaysta buugga. qoraagu waqti badan ayuu geliyey, wax badanna waad ka faa'iidaysaan insha Allah. waqtigiinna qaaliga ah isku daya inaad meel qaaliya ku bixisaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.